sheekadan waa mid aad u xiiso badan waxaana ciwaanan kaga dhigay basaaskii dunida ka yaabiyey. magaciisu waa Ernest Bollard waxaana ku soo dhawaataa qaybtii koowaad ee sheekadiisa waxaana sheekadan ay noqon doontaa mid taxana ah oo hadba qayb aan idiin soo gudbiyo insha Allah. cid taqaanay ma jirin goormee iyo xaggee buu ku dhashay Ernest Bollard balse magaciisa inuu yahay kan loogu yeero xataa lama hubin maxaa yeelay ilaa hadda lama haya magaciisa dhabta ah. balse magaca Ernest Bollard ayaa ah magaca loogu yeera. markii uu horeysay ee uu Jarmalku ka soo ifbaxay Ernest wuxuu ahaa nin dhalinyaro ah oo aad u firfircoon aadna u taageera lana dhacsan fikirkii hogaamiyihiisii Adolf Hitler oo ahaa hogaamiyihii codkarka ahaa isla markaana dadka qaar ee reer Jarmal ay u riyaaqeen xiiso iyo xamaasadna hadaladiisa ku beereen hantiyana garaadkii dhalinyarada Yurub inteeda badan. warwarna ku abuuray madaxda Yurub ee wadnaha farta ku haysay isna weydiinayay maalmaha soo socda maxay xabaarsan yihiin baqdina geliyay aayaha Yurub oo dhan. xilligaas Bollard magaciisu wuxuu ahaa ama loogu yeeri jiray Rodolf Gelin xubinna wuxuu ka ahaa xisbiga naasiga aadna wuxuu u soo jiitay indhihii iyo caqligii dadka ayagoo la yaaban firfircoonidiisa iyo sida fudud ee uu saaxiibada u kasbado bulshadana u dhaxgalo ama ugu dhaxmilmo iyo sida uu u faafiyo mabaadi'da xisbiga. sidaa darteed waxaa qabtay indhaha madaxda xisbiga waayo xisbigu wuxuu u baahnaa dhalinyaro asagoo kale ah oo soo jiidan kara malaayiin dad ah si loo galo dagaalka la qorsheynaya oo Jarmalka rabo inuu ku qabsado dhammaan Yurub. habeenada ka mid ah Bollard asagoo u socda gurigiisa oo ku yaala hareerta Berlin ayaa waxaa istaajiyay nin buuran oo ku yiri waqti ma haysaa inaan arrin yar kala hadla ayaan rabaaye. asagoo argagax iyo la yaab midna muujin ayuu Bollard weydiiyey maxaan ka hadlaynaa. ninkii intuu dhinaciisa u soo jeestay buu dhagta ugu sheegay arrin Jarmalka oo dhan u ah. si degan intuu u fiiriyey ninkii oo sii dhaqaaqay ayuu ku yiri kaalay. ninkii sirdoonka Jarmalka ka socday aad buu ula yaabay dhaqanka Bollard laakiin waa dabagalay asagoo aamusan tan iyo intii ay ka gaarayeen gurigii yaraa ee Bollard deganaa. markaas buu ninkii yiri waxaan rabnaa inaan qaybta labaad ee soo socota naga mid noqoto. Bollard intuu kursigiisa dib isugu tiiriyay oo fadhigii qaabaystay ayuu yiri idinka oo ah qaybta labaadse waa maxay. ninkii intuu dhoola cadeeyay asagoo wajigiisa ay ka muuqata sida uu ula dhacay geesinimada Bollard iyo deganaanshihiisa ayuu si dhab ah u yiri su'aashaada qaybta labaad jawaab kama helaysid siiba xilligan la jooga balse su'aashaada koowaad tan ayaa ku jawaab ah. oo inta jaakadii uu watay gacanta geliyay ayuu ka soo saaray aqoonsi uu dhiibay Bollard oo ka akhriyay magaca sirdoonka Jarmalka oo inta dhabanada qabsaday Bollard yiri ma waxaad rabtaan inaan idin shaqeeyo. ninkii sirdoonka inta dhoola cadeeyay ayuu yiri hadalka saxda ahi waa inaad la shaqeysaa. waxaa si gaar ah kuu soo doortay hoggaanka sare ee sirdoonka si aad noogu mid noqoto. qof kasta oo dhalinyaro ah riyadiisa ayay ahayd inuu ka mid noqdo basaasiinta Jarmalka oo naftiisa u horo dalkiisa iyo hogaamiyaha. waxaase yaab ku noqotay ninkii buurnaa markii uu yiri Bollard inaan ogolaado ma igu qasabaa. ninkii sirdoonka intuu Bollard si fiican u eegay buu asagoo amakaagsan ku yiri waxaan ku soo bandhigay waa inaad ku biirtaa basaasiinta Jarmalka dalkaada inaad wax u tartid ma rabtid miyaa. hadalkiisana sii watay ayuu yiri tan shaqo ma ahan caadiya. balse Bollard ayaa yiri laakiin waa shaqo waxay tahayba. habeenkii in badan baa gudbay intii ay isjiidayeen ugu dambeyntii sirdoonkii Jarmalka ninkii ka socday asagoo amakaagsan ayuu tagay hubana inuu arrintan u gudbin doono madaxdiisa balse aan ogeyn sida dhaqankoodu noqon doono waayo sooyaalka Jarmalka ma aysan dhicin in qof diido ku biiridda basaasiinta Jarmalka. waxaase yaab kale noqotay markii madaxdiisa ay si degan u aqbaleen wixii dhacay balse waaba ka sii heleen ninka la oran jiray Bollard maxaa yeelay waxaa halkaas ugu muuqday in uu yahay qof wax laga dhaadhicin kara isla markaana muhiim u ah basaasiinta Jarmalka. hal toddobaad kadib Bollard
wuxuu la fadhiistay Himmler oo ahaa ninkii ugu halista badnaa Jarmalka oo dhan marka laga reebo Adolf Hitler. Wadahadalkii markuu dhammaaday, Pollard wuxuu ahaa mid u shaqeeya basaasiinta Jarmalka balse aan ka mid ahayn oo aan ku biirin, wuxuuna noqday tiftif loogu kalsoon yahay si aan hore u dhicin, siiba markii dagaalkii labaad ee adduunka bilowday 1939. waxaana Pollard uu saaxiib dhow la noqday Himmler oo ahaa hogaamiye saameyn ku lahaa dalkaasi Jarmalka, isla markaana saaxiibo dhow ay ahaayeen Adolf Hitler oo markaas haystay Jarmalka. Febraayo 1941 waxaa loo diray Ingiriiska ayadoo la eegaya inuu aad ugu wanaagsan yahay afka Ingiriiska iyo asaga oo ahaa basaas aan caadi ahayn. waxaana halkaas ka bilaabatay sheeko aad u xiiso badan iyo basaasnimo aad u halis badan. qaybtii koowaad ee sheekadii basaaskii dunida oo dhan ka yaabiyey ee Pollard waa intaa, waxaana inoo ballanaa qaybta labaad ee sheekada oo ah mid aad u xiiso badan insha Allah.